xaflad ballaaran oo shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiinayay arday isugu jiray hable iyo wiilal dhamaystay xifdiga quraanka kariimka ah ayaa lagu qabtay magaalada Burco. ardaydan iyo ka aflaxay madrasada Makal Mukarrama ayaa waxa munaasabadoodan kala soo qayb galay xubno ka socday golaha deegaanka ee degmada Burco kuwaas oo tilmaamay sida ay ugu faraxsan yihiin xafladan iyo sida loogu baahan yahay in loo xoojiyo xifdiga iyo barashada quraanka. xafladan qiimaha iyo qaayada ardaydan quruxda badan qiimaha badan xafladaha kale anagu way kala duwan tahay aad iyo aad u soo dhaweynaa. marka ugu horeysa munaasabadan maanta waxaan u tahniideynaa ama lagu xambalyeynaa si farxad leh macallimiinta soo saaray ardayda quraankuna waxa weeye waa fadilan yahay shifaa wa rahma weeye muuminiinta dhan. maamulaha madrasooyinka Makal Mukarrama Eid Abdi Mire ayaa ka warbixiyay maraaxilkii kala duwan ee madrasadan isagoo u mahad celiyay waalidiinta ardaydan ku tabacday. waa in ku dhiirigelinayno waxaan uga jeednaa waxa weeye ragga quraanka dhameeyay inay ku dhiiradaan halka ay ka sii wadaan kuwa ka dambeeyana inay iyaga ugu dadaalaan fadhiya quraanka dhameeyay. ardaydu waxa weeye waa toban arday weeye shan hablood iyo shan wiil weeye ayaan leeyahay. waxaan kula talinayaa waalidka iyo ardayda iyo culimadaba iyo macallimiinta ama ka mid nahay inaynu wada ogsoonay xilbada saaran waalidin weydiinaya. waalidiin culimaaddin iyo marti sharaf kale ayaa geestooda soo dhaweeyay una mahad celiyay macallimiinta juhdiga iyo dadaalka dheer u galay sidii inamadan iyo hablahan daada yar loogu abaabin lahaa barashada iyo xifdiga quraanka waxaana ay ugu baaqeen inay halkaas ka sii wadaan dadaalkooda. waxa ka mid ah waalidiinta ما هو ده بقى الجديد المعلمينتا إلهي جزاه خير كسيو. dhinaca kale ururka haweenka hidaha iyo dhaqanka ee Hiddo ayaa olole ballaaran oo nadaafadeed ka fuliyay magaalada Burco kuwaas oo iska wuxuu qabso ku shaqeynayay saaka. ururkan Hiddo oo mudan ku dayasho ayaa waxay ololahani ka bilaabeen biriishyada magaalada Burco ay ciid qaad ku sameeyeen waqtiyada roobabowga si aanay u waxyeeloobin. waxaana maanta oo inta badan laga nastay shaqooyinkii kala qayb qaadanayay maayir ku-xigeenka degmada Burco iyo xildhibaan Bidhi waxaana ay mahadnaq iyo bogaadin u soo jeediyeen ururkan Hiddo. ururkan ka shaqeynaya hawsha fulinayna waa ururka Hiddo gacan weyn baanaanu siinay qalabka iyo agabka ay ku shaqeynayaan waanu ka caawinay. hore u bilaabeen inay wadi doonaan anaguna kula shaqeyn doono waxaan leenahay sida ururka Hiddo ay isu direeyo ay magaalada uga shaqeynayaan ee ay u garanayaan waajibaadka magaalada iyo dadkooda ka saaran ururada kale ku dayday. xubno iyaguna ka mid ah ururka Hiddo ayaa ugu baaqay bulshada inay gamcaha isku qabsadaan horumarinta magaaladooda. ana wadayna maalin walba inta ayaan hadii la yari waxaan ku ballan qaadaynaa maalin walba satamaanka walba 3 casho ka shaqeyn. Absaaq Faarax Cabdilaahi TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.